wafdi ballaaran oo hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayre Dirir oo weheliyaan mas'uuliyiin ka socotay hay'adda laan qayrta cas iyo bisha cas gudiga taakulaynta abaaraha ee gobolka Sool iyo baada saxaafadda iyo socdaal ku urgelida xaaladda abaareed ku kala bixiyay deegaanada ceel quule dhiiri goobo iyo cilmidgaan oo dhamaantood hoos yimaada gobolka Sool waxayna markii ay halkaas gaadheen warbixino kaga dhageysteen dadka ay xoolihii ka dhamaadeen oo isugu soo aruuray kaamankaasi sidoo kalena waxay indheeyeen ilihii biyaha ay ka cabayeen dadkaasi waxaan ahaanin عاقل كون يشان بقول أو ضيوه ما أنت أنا كون يشان تي بقول وحي كوكلا داسيه قبل كي هريريه سي يجو حواليه كذا مادين جيل واحد مادي عارينا واحد مادي ده تكون وباهية. إذن لا هاي ماشى وحنا صوت بيدن دن حوالها يجو واي مدين أورتي واي فرفريستي جيلي ونجا فرفريستي تماري أنا وحكو هذا يوا فريستين aqalada bacaan dhabarkan ku wada sidnay bacaha iyo alaabada mas'uul ka socday hay'adda laan qayrta cas oo halkaasi dadkii xooluhu ka dhamaadeen kala hadlay ayaa ka dhawaajiyay inay dadkani u baahan yihiin kaalmo bini'aadanimo oo degdeg ah waxaana ballan qaaday inay baahiyahaasi wax badan ka qaban doonaan. We would like maybe to talk to 2 or 3 families who are displaced here to see again what are their main needs. I cannot promise you anything what else we can do, but of course we are aware of the situation and we will carry back the information to the office and make a decision then. waxaan jecelahay la kulno qoysaska abaarta saameysay laba ama saddex wixii la mid ah saan iyaga u ogaana xaaladoodan iyaga u maqalno ujeedkan maanta u soconana waxa weeye biidi hay'adda ka soconnaa hay'adda aysan ka soconnaa waxa weeye hordhac kula hordhaca weeye waxaan rabnaa xaaladda guud oo bilaadnimada ka jirta deegaanka inaan ogaano taasaa maanta halkaan intaasi kadib waxaa waftigii ku soo guriyo noqdeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxayna kulan ku qaateen xarunta maamulka gobolka iyagoona ka warbixiyay wixii ay indhahooda ku soo arkeen xoolihii iyo dadkii watay intuba waa xaalad culus bay ku sugan yihiin waxaana ugu muhiimsan oo hadeer ay dadku u baahan yihiin waxay cunaan waayo neefkii ay qala haysteen mana qalan karaan lagamana iibsanayo xaaladaasi waxay keenaysaa dadku inay gaajo u dhintaan gobolka yagan abaarta ka taagan ee duruufteena haysata maamul ahaan iyo shacab ahaan intaba waxaan u midaysan oo u taaganahay gurmadkiisa waxaan ku soo gabagabeynaya waa gobol amaana hay'adaha caalamiga iyo shaqaalaha intuba meeshii ay doonaan sida aad u soo marteen bay u mari karaan oo uga shaqeyn karaan maadaama dhaqaaladu ku saleysnaa xoolaha waxay keentay in dhibaato badan la soo diriso dadkii reer miyiga ahaa ee xoolo dhaqatada ahaa ee dhaqaalaha gobolka guud ahaan iyo gaar ahaanba ku tiirsanaa awoomayn soo gaaray way jiraan ama ha ka yimaadeen xagga xukuumadda ama ha ka yimaadeen xagga jaaridaha laakiin dhibaatada taagan maanta wax ay ka kafeyn karaan haba yaraatee ma jirto waana dhibaatada aad soo aragteen inta aynu soo aragnay waxay ka tahay dhibic biyo ayay ka tahay dhibaatada baaxadda leh ee ka jirta gobolka guud ahaan xaaladdan maanta aynu soo aragnay mid sugi karta ma aha sida hay'adaha kale UN-ka inay xafiisyo fara badan marto ama muddooyin fara badan la sugo waxaan rajayn doonaa sida aan uga barnay labadan hay'ado caalamiga inay emergency degdeg ah ay dadka soo gaarsiiyaan hadii la yiraahdo anagu waxaan ballan qaadanaa maamul ahaan iyo guddi ahaan iyo bulsho ahaanba marka koobaad inaanu ilaalino security amaanka cid kasta oo halka dadka caawinayso hay'adaha kamid ah xafiiska ay soo dirto wax kasta ay keentana sidii loogu talagalay ee tooska inay ummadda gaari doonaan gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayre Dirir ayaa noqonaya barasaabkii ugu horeeyay ee kormeer ku galida xaaladda abaarta ee ka jirta gobolka oo ku gaadha deegaano hoos yimaada gobolka isla markaasna la qaybsada dareenka dadka ay abaaruhu saameeyeen Samiir Saciid Bile Fogaan arga xorta ee bulsh Laascaanood.